إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في العقيدة waxaan isku dayi doonaa haddii alla yidhaahdo subxaanaه wa tacaala inaan kelimaad ka idhaahdo mowduuca si loo bixiyey fahmi اlxayaa ama nolosha iyo fahamkeeda garashada aynu garanno noloshan adduuniyo iyo waxaynu ugu noolahay waxaa ka ratibmaya acmaasheenna iyo waxaynu la qasdinayno nolosha oo la gartaa waa arrin aad u muhima waxaan isku dayi doonaa inaan in badan idinku akhriyo nusuus badan oo min kitaab illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayh waalihi wasalam ah oo aan aad u jeclahay iyaga ururintooda keliya haddii laydin maqashiiyo inaa mowduuca waxaan uga gun leeyaa fahmi doontaan waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aankiisa inoogu tilmaamay inuu qofka bini aadamkaa abuuray dhoobo ka abuuray dabeetana ruuxu ku afuufay ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu u doortay qofka bini aadamkii inuu noqdo khaliifat ullaahi fi lard ama inii jaacilun fi lardi khaliifa waxaa kaloo qur-aanku uu inoo tilmaamayaa intaa dabadeed taariikhda qaybkii qur-aanku uu ka warramo mid ka mida waxay tilmaamaysaa in noolaha ama kownka baan idhaahdo doorasho la dooransiiyey dabeetana bini aadamku uu doortay qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inna caradna alamaanata cala alsamaawaati waalard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala inoo tilmaamaya in loo soo bandhigay ammaana shay uu qur-aanku ku tilmaamayo cirka iyo dhulka iyo buuralayda iyo waxoo dhan dabeetana ay diideen iyagoo naftooda ka dhowraya oo ka cabsanaya inay qaadi kari waayaan فأبين أي إلهي يدي سبحانه وتعالى دبتنا إنسان كو حنباري أما سوى أقبالي ديديست لغت المامي يقوين يديدين لما مدها تي إبليس وكالي فأبا دي إلهي إبليس وكت المامي لما نوعها وهي إبليس أمر بايسيق للسيي لكن قلدا قضية دود واحد عرض إن عرضنا الأمانة با إلهي سبحانه وتعالى والله سو عرضي والله سو بندقة إيجا اختيار كل سيين دورتان قضية ده إبليس لكن أمر بو يسقوا هاي السماية ده تنود دي ومد لبعض إبليس يسقوا استكبارا بو دي ده يسلويني لكن إيجا إلهي وحلاي فاشفقنا منها
iyagu istisqaaran bay u diideen iyagoo isdhul dhigaya oo arkaya inaanay qaadi karaynin insaanku se wuu qaaday shaygaasi ammaanada insaanku uu qaaday waan odhan karno waa waxyaabaha dhaxal siiyey inuu noolaha kale ka gadisnaadaa maxay tahay ma inuu alla caabudaabaa oo cibaadada makhluuqaadka kale miyay diideen sawka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya ثم استوى إلى السماء وهي الدخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين يقوم مطيعين وعابدين لله سبحانه وتعالى سوك إلهي سبحانه وتعالى قرآن ككت المامية إن ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كواسو دمي الله يعابدين تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذن كون كودم إلهي بعابده سبحانه وتعالى وما حيوحك قد السيء هذا حوك قد السيء ما ينو عاقل يهي سوك قرآن كتلمام يماها noola kaloo dunida ku nooloo caqli leh inay jiraan bal qisatu sulaymaan sawka quraanku inoo tilmaamaya maaha in shimbir uu ka soo waramayay malikatu saba iyo qadaayaadkeedii oo dhan iyo ilaahay qeyrkii inay caabudaan iyo waxaas oo dhan yani inuu fahmayay ma xawla iyo waman xawla gabadhaas iyo waxa agagaarkeeda joogay waxoo dhan inuu wada garanayay بل سوك هدهد كتلمام يماها يعني ميانا هين حقيقة وإنه فهم يي كون كان يوحيابا كالصعودة يدد كان وحي السميني وحا صردمي حا هدا إنسان كسو عيهي ما إنه سيدا كوان قالدو إلادان حيوان اجتماعي يهيبا ما هي حيوان ندى اجتماعي عالم كو يكون بدني waxaynu leenahay insaanku wuxuu ku soocan yahay inuu doortay ammaanadaasina waa shayga insaanka dhaxal siinaysa inuu khilaafada loogu talagalay u fuliyo waxaynu odhan karnaa insaanku wuxuu soo maray laxdad doorasho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doorasho geliyey waxaa loo soo bandhigay baynu odhan karnaa noolaha in ay nimco ku waaraan haddii ay aqbalaan oo ay la yimaadaan nimcadaasi shuruud ay ku xidhantay oo ah inay imtixaan galaan ama musaabaqa inay galaan oo cidda ku guulaysata ay hantiyayso markaasi almulki alkhaalid nolosha adduunku markaasi si aynu u fahamno waxaynu odhan karnaa waxay tahay waa daar alibtilaa ama waa daar alimtixaan ama waa meel qofka bini aadamkaa loogu talagalay in lagu itixaamo oo loogu itixaamayo imaa inuu guulaysto oo uu janno abadiya galo inuu guuldarraysto oo uu naar abadiya galo laakiin bishart inuu janno abadiya galaa inay ku xidhan tahay imtixaanka loo qariray inuu galo oo ku guulaysto ammaanadaasi aad takaaliiftaasi inuu xambaaro ayuu aqbalay bini aadamku wa hadduu ku guulaystana inuu janno galo hadduu ku khasaarana inuu markaasi naar gelayo waxaynu leenahay waxa alle subxaanahu wa tacaala markaa bini aadamka siiyey imkaaniya ficli alkhayri wa shar ama inuu shar iyo khayrba samayn karo waxaynu leenahay sida ay cadaabtu u tahay ansab daarin litacdiib oo ay jannadu u tahay ansab daar meesha ugu fiican ee la isugu nimceeyo ayay dunida iyo qaab dhismeedkeedu wuxuu yahay sida u fiican ee la isu itixaamo dunida iyo qaab dhismeedkeedu waa sida ugu fiican ee la isu itixaamo
إلهي سبحانه وتعالى وحانو كنت المامية الحياة الدنيا بسماواتها وأرضها على الكقدم بيانو كميديا هي إن بشر كاللغو يتحام وقال القرآن كله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا الابتلاء أو الامتحان إن لا يسكو اتحامه أي سمدان إيا عركان إيا دولكان إيا وحا نودم يودسي وحن لأن وحا علاقة إنسان كي الزمن كدحية جيري إيا النلال إيا تطور كان ترى بدن لو بني آدم كمرأيه ودمانتي وحا الله طلق عليه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وحن لأن إلهي سبحانه وتعالى إنسان كوحو كدقي متفهم يكون كانوا كنوا لي وسميعا بصيرا بو كدقي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه بإلهي سبحانه وتعالى إن لا اتحامه درادد بلا وحين لأني عالم الغيب إي عالم الشهادة بإلهي نولا شوقي به وحلا أركي كره إيا وح غيب ومقن وحسيد الله قد قاين بني آدم كالله يتحامه هذا وح ولبا مشاهدة وح والباين ده ضدك وصار لها امتحان كوسكا يران كاري لها ولذلك ما مثلا حديث بخاري هذا ينوفر صنع كتاب الجنائز كوكسارور يا إمام البخاري وحنبي قلت الإمام عليه الصلاة والسلام قفك بني آدم كا مركا حباشا اللي قرده إدتكو أي كيتشيستان إنو مقله يعني سنقدك بهذا إنو دبو مقله ودبتنا لما ملكاوي مادان وأي ويديا النبي عليه الصلاة والسلام يدين تسوي حكورني وهدو مؤمن يهين وشهاته إلهي رسولك سبوقره هدي ودا منافق أما كواسي قال هذا هالانا وأرنا وحبا ما قرنيه ويكو أرن دونان وحناها قرنين دبتنا إنا يقراعي دونان حديث محل شاهد كي نقص عنا وحيه وحلقوا قراعي دون أبو حديث كتلمامية بمطارق من حديد دبتنا الرواق كبحة وحا مقلد دونه من يليه غير الثقلين أي مقلد دونه وحا الله لأي وحا أدو وأنا هين جنك إيا إنسيga waxan kale xaqaa'iqdaasi xabaasha ka dhacaysa waxay u maqlayaan iyagu imtixaanku ma jiraan laakiin bini aadamka waa laga qariyay si loogu imtixaamo daraadeed isagu kuma jiro isaga iyo jinku kuma jiraan kuwa maqlaya waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala nolosha wuxuu u qaybiyay wuxuu qofka bini aadamkii ogaan karo iyo waxaan ogaan karin qiyaamaha dhicistiisii baa kamida waa qofku goortu dhimanaya ama geeriyoonaya kamida waxyaabahaas oo dhan waa la qariyay waxa loo qariyay in qofka lagu imtixaamo caalam shahaada qofka ilaahay wuxuu uga dhigay adawaatul ilm buusiy samiican basiiran baa laga dhigay saaxibu fuaad baa laga yeelay kuwaas oo dhan waxa loo siiyay been leena in la imtixaamo noloshu qaabka ay u dhisantahay oo dhami been leena waa qaab ku salaysan al-ibtilaa nolosha fahamkeeda xaqiiqiga ah wuxuu yahay inuu qofku garto xayaatada adduunyo inuu u joogo in la imtixaamayo inaad ku raaxaysanayso iyo inaad ku barwaaqaysato yahay maaha nolosha adduunyo waxa loo jooga ee loogu nool yahay inaad tahay qof imtixaan ku jira imtixaankaasi natiijadiisuna maalinta qiyaame inaad la kulmayso waad ka mid noqon doonto markaasi kuwa janno loo dareeriyo ama aad ka mid noqon doonto kuwa cadaab loo dareeriyo si imtixaanka bini aadamka loogu dhamaystiro ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala bini aadamka wuxuu ku abuuray jawaanib caatifiya jawaanib shahwaaniya waxa lagu abuuray qofka bini aadamkii xoolo jacayl boqortooyo jacayl sultaannimo jacayl waxyaabaha soo dhan waxa bini aadamka lagu dhex nooleeyay nolol loo sakhiray oo loo fudaydiyay qofka bini aadamka waxa Allah subhanahu wa ta'ala uu noloshiisa ka yeelay qof dareemi kara dhibta gaajada xanuunka murugada baqaha tiraanyada warwarka waxa soo dhan inuu dareemo waxa kale oo nolosha laga yeelay waxa soo dhan wax ku sababi kara inuu baqo tiraanyoodo warwaro murugoodo waxa soo dhan wixii sababi lahaana isaga waxa laga dhigay inuu qaabiliya inuu leeyahay waxa si inuu dareemo
كونك دمانتينا waxa laga buuxiyay waxyaabahaasi wixii qofka ku sababi lahaa inuu dareemo waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala u nafta bin aadamka ku tilmaamay zuyina lin-nas hubbu ash-shahawati min an-nisaa wal-banin wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahab wal-fiddati wal-khayl al-musawwamati wal-an'am wal-harth dhalika mata'u al-hayati ad-dunya waxa ilaahay tilmaamay nolosha gabigeeduba hatta carruurta la dhalay wuxuu dhabnay imtixaan واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وحال سبحانه وتعالى tilmaamay hatta dhulka iyo waxa kor saaran ee lagu qurxiyay oo dhami inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ba ilahi subhanahu wa ta'ala waxaan marka shakhsiga bini'aadamkii qaabka alla uu abuuray iyo koonka uu ku dhex nool yahay qaabka loo abuuray iyo xiriirka ka dhaxeeya qofka bini aadamka iyo nolosha dhamaanteed waa qaab in la ittixaamo qofka bini aadamka xayaatul insaan been leena marka hadaynu rabno fahmi alxayaati dunya min awwaliha ila akhiriha wa imtixaan wa mashaqa laqad khalaqna al-insana fi kabad يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه لا بد من كبد ولا بد من كدح نولش هدي للربين لفهمه ونولل كسل يسن امتحان واحد شرته مثلا أنا رنكرنا الفلسفة العالمية مركا لا يسكت وضد درجة جوانبتك لقديسان أردن مركا يسكت ضيان inay sharxaan nolosha guud ee bini aadamka iyo qaabku u nooliyay dib baa jirta falaasafo kasta aqligooda daalisa oo ay sharxi kari waayaan maxaa dunida sharku u jooga waxa laga yaabaa baad kristanka kamida gaar ahaan Jehovah Witness iyo qoliyaha la mid su'aalaha koowaad hadiyo goor dadka muslimka ay ku wajahaan ama ay weydiiyaan waxa weeyaan ilaahay hadduu raxmaanur raxiim iyo caynkan iyo maxaa dadka badh u dhibaatoonayaan oo gaajoonayaan caynkan ugu dhacayso miyaanu ilaahay raxiim ahayn oo raxmaan ahayn oo caadil ahayn oo caynkan kaanama ay jecel yihiin inay ku sawiraan sifaadkan nooc min adh-dhulmi inay tilmaamayaan hadduu kuwa ku sifoobay waaqacana lagu hayo dad dhibaataysan oo mushkilaadkan ah laakiin waxay leenahay nasqi falsafi iyo caalamka koriyaala oo sharxaya alxayaati dunya ma jiro illa alkitaab wa sunna mooyaane waxay leenahay dunidatan inay mushkiladani ka jirto oo ay qaabkan u taalo oo waxaan oo dhib yaalin aslan baa loogu qastiyay waayo waxa loogu tala galay in la isku itixaamo waxa la tilmaamaya subhanahu wa ta'ala bini aadamka in khalifatullah fi al-ard laga dhigay سببتنا وحيتين لا يتحاموا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم بإله إليه ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون حياتك سينة سنين حتى منزلة الخليفة إن يتهي إن لين أغب الوحي نقبرنا إن لين يتحاموا واحد بني آدم كاللوغو يالي إنو قابل شو نولاده إنو رير ياشو إنو حضارات ياشو إنو الدول ياشو الظواهر الاجتماعية waxa lagu tilmaamo social system isku inay jiraan waxa loogu yeelay in la itixaamo وكذلك فتنا بعضكم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وحلنا إلهي سبحانه وتعالى وحب بن آدم كوغيا لك هو كوكلا قدسا أرساقه علمك عقلك حوقك عافماتك quruxda deeq wax kasta kuwa ku kala gadisan si loo itixaamo waxay leenahay xataa xidhiidhka ambiyada iyo bini aadamka ka dhaxeeya wuxuu yahay in la isku itixaamo rusush wama arsalna qablaka min almursalin illa innahum layakuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun ba ilahi subhanahu wa ta'ala
وكايدك لا إله إلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا مجتمع وحل لوكالة تكسية لوكالة تفرارقية إن لا يسكو التحامة وحبر غني لوغا دقا يبر فقراء لوغا دقا يبر لو عريامي يبر دبتوها يسطا إن لا يسكو التحامة وحل لنا يبلئه إلهي سبحانه وتعالى بنادم كم يدخلوا كدقا كارلها وحمد بضا لوغو كلا يالي قبائل كاللوغا كلا دقا شعوب تلوغا كلا دقا إن امتحان كان قلان ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بإلهي ولكن ليبلوكم فيما آتاكم الواودي كري سبحانه وتعالى إنه أمة واحدة إذن كردقوا في كل الأشياء لكن لا إذن كمردقنا وحلا إذن كردقوا مجتمعات مختلف كلا أو كلا قدسان أو كلا فوق سببتنا وحيتهاي إن لا يسكو التحامل هدان وردن سوكو بوحلاني فهم الحياة وأرى إسكاكو بينكو شرح كرنا نلشة دمانتد معنى كلاي السمين سامتشرته اللهم إلا الاختبار والامتحان نيتيتمو يعني وتجربة ابتلائية وحقرآن كوت المامية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلهي بوحليه سبحانه وتعالى وحندكو اتحامية قاتشو بقى حولياري نفياري وحاصور دبا ولنبلونكم بالليل إلهي بوحليه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور قفك بن آدم كايلا وحقو تلقلين لغو اتحامه بالآلام هداي قاتشتي هداي فقرتي هداي موتي هداي مصائبتي إيا هداي تي دباتوين كبدان الظالمين تصبين يعني ظالمين توحى لغو اتحامي بالسلطة والقوة وحكاني إيانا بالصدق واستعمالنا من نوع يقلان اللي أهب وحين لنا مرك إيمانكم ووجهك حقيقي إلا ربا إن لوغا جوابا امتحان كاس oo hadduu dhib iyo mashkilad yahayna in lana sabro sidii looga bixi lahaana ilaahay loo tala saarto loo camal galo hadduu waxa lagu itixaamay nimco iyo sultaan iyo jaah iyo qurux iyo wax la noocayayna waa nooc min alimtixaanaat in ilaahay looga mahad celiyo subxaanahu wa tacaala oo loo mahadnaqo تجربته هداي بالنعمتي امتحانكم هدو بالنعمة إيه هدو بالنقمة وسوا وامتحانهم داد سلطانية حول بدنية النمعائية وحان هيستان ونوع من الامتحان هدي فقرية قاتشية ابتلائية مشكلة كانت ونوع من الامتحان وجهك كلية وقفكم امتحان كاسيك قدبانه وهداي مشكلتها هنا إنه صبرك يا وحن ولا يماضه هذا إن معاد يبر واقد يبرارا يكنت هينا إنه شكر الله يماده وحين لا نمرك قفك الصابر على الابتلاءات المؤلمة أما الشاكر كقوة على الابتلاءات الممتعة قفك شكر النقية إيا قفك صبر يلا بضبا ابتلاغا كان وو كسيبتا مركا النمعادا أما بلدس أي ولي ما دان وجهي حقيقي للربين يوجد جوابان سيد الدرادين وحنا نكرنا ابتلاءاتك دادك ويكور وران واي نرشان يساني وفهمين دادك بردو وحي ورور بداني وكهستا قف بالغا يابا إن مشكلة قبصتا ما وحياب بدان مركاسا وحلغا يابا inta badan
faham qaldan inay dadku ku sharxaan laakiin waxaan leenahay waxa dhici karta ibtilaagu inuu u yimaadaba lirifca in qofka la kor yeelo daraaddeed si uu qofku u gaadho aqsa darajaat alkamaal albashari wa aanu si kale ku gaadhi karin ila alibtilaa mooyaane walidalik ayaa xadiidka uu warinayo muscab ibnu sacd ibn abi waqaas wiilkiisu aabihii ka warinayo ee imaamu tirmidi uu soo saaraya uu leeyahy waa xasanun saxiix albaanina saxiixadiisa uu ku tasxiixinayo wuxuu nabigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam saxaabigan baa wuxuu ku yidhi nebi qultu yaa rasuula allah ayu nnaasi ashaddu balaa dadka yaa ugu bale badan yaa ugu dhib iyo mashkilad badan dadka ayaa nebiga la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam nebigu wuxuu ku tilmaamay alambiyaa dadka waxaa ugu dhib iyo mashkilad badan alambiyaa xadiidku wuxuu leeyahy uma alamthal faalamthal wuxuu kaloo dadku u kala dhib badan yahay siday u kala fiicni badan yihin ama alaagtii ugu kala dhow yihin xadiidku wuxuu kaloo tilmaamaya fayubtala alrajulu calaa xasabi diinih qofka in la itixaamo oo ibtilaagu ugu yimaado hadba diintiisu intay laagtay graafka iimaankiisu markuu kor u kacaba ibtilaa'aadkuna inay kusii bataan markuu hoos u dhacana in ilaahay ka yareeyo fain kaana sulban hadduu adag yahay oo diintiisu ay xooggan tahay ishtadda balaa'uh wain kaana fii diinihi riqa ibtuliya calaa xasabi diinihi buu nebigu leeyay diintiisa haddii jileec ku jirana waxaa loo itixaamaa hadba inta ay diintiisu laagtay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkaasi wuxuu leeyahy famaa yabraxu اlbalaa'u biاlcabd xataa yatrukuhu yamshi maa calayhi khati'a imtixaanka iyo belada iyo masaa'ibtu qofka kama suusho ee waa lagu wadaa buu nebigu leeyahy ilaa iyo qofku uu xad gaadho inuu dhulka kor socdo isagoo aan dembi saarayn idan waxaan leenahay balaagu wuxuu yimaadaa lirifca in la kor yeelo waxaynu odhan karnaa ibtilaaga iyo imtixaanku waxay u kala badan yihiin siday dadka diintoodu u kala badan tahay welibaan si kale u tilmaamo waxaad taqaaniin ardaygu markuu dugsiga hoose ku jiro imtixaan khafiifa laga qaada kullamaa aqoontiisu ay sii korodhaba imtixaanaadka iyo qaabka loo sameeya way kasii adkaadaan markuu heer jaamici gaadho qofku qaabka loo itixaamo wuu ka adkaadaa qofkii dee elementary ama dugsi dhexe ku jiray ama dugsi thaanawiya ku jiray idan darajaadkiisa cilmiga iyo aqoontiisu markay sii korodhaba imtixaanaadku gelaya way sii bataan fakadalika almu'min kullama irtaqa fi darajaati aliimaan sulami liimaanka markuu kor u koraba waxaa sii bata imtixaanaadka la gelinayo si ay u sii badato darajaadka uu gaadhayo walidalik ayaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkaasi imaamu tirmidi warinaya xasanun صaxiixa uu ku tilmaamaya sheikhu اlalbanina uu ku raacsan yahay wuxuu nebigu ku tilmaamayaa famaa yabraxu اlbalaa'u biاlcabd xataa yatruku yamshi maa calayhi khati'a inuu lirifcayay waxyaabo badan baa tilmaamaya xadiidkaasi aynu tilmaamnay waa ixda riwaayaat riwaayo kale waxay tilmaamaysaa أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام إن dadka ugu imtixaanka badan la anbiyada yihiin dabeetana saalixiintu ay ku xigto midkood buu nebigu leeyahay saalixiintaasi faqri baa lagu itixaamaa ilaa ayaanu waxba ka haysanayn in cabaada yare uu huwan yahay mooyaane wax kaloo haysta aanay jirin laakiin buu nebigu ku tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam balaaga iyagu waxay ugu farxayaan sida midkiin idinka uu nimcada ugu farxo sida xoolaha iyo adduunkan iyo waxaan ugu farxdaan ay dadka saalixiinta ibtilaa'aadkan ay ugu farxayaan buu nebigu ku tilmaamaya bale axaadiista saxiixa ee nebiga ka soo aroortay waxaa ka mid ah
إنه نبي كنت المامي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أبا المركة ويني دي سبينا يكون حرانتهي بلد ويني ده وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ولما النبي عليه الصلاة والسلام قوم هدون الله تعالى سبحانه وتعالى إلهي واتحامه فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط عند الرالي نقطنا رالي بوليه عند عروتانا عرى الله بوليه والعياذ بالله حلان النبي عليه الصلاة والسلام مركز بوحو تلماما يا قفك مؤمن كا إن الرفعة ونقن كرته مسألة تانية وكان النبي عليه الصلاة والسلام حديث كالترمذي ورنا يا وحصنين يا وحليه إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا هدي قفك قال له خير لا دونيه مشكلة دي سبا أدونك الله هرماريا نبتي سأدونك كقاطع دي خير الله ولا ربا قفك كان أدونك انتو تشوغو نبتي سودان قاطع وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة قال شركا لدون ينا ذنوبتي سدوني دلقما أمال مريا والله كايديا سفر قد اللوغو دو فيو بوس كان ناري دا سرولي يوغارو waxaan leenahay markaas ibtilaaga qofka mu'minka ah ku dhaca iyo ibtilaaga qofka gaalka ah ku dhaca ama labada mashkiladada kala qabsata wajiye kala gadisan bay leeyihiin kow ibtilaaga qofka mu'minkii wuxuu yimaadaa lirifca wa tathhiir in kor loogu qaado ama in dunuubta lagaga daahir yeelo waxa kale oo ibtilaagu dadka mu'miniinta ugu dhaca litamxiis إن يجا صفوف تودا لكلا الصعو كودا في عني كودا حن لكلا وقادا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب آيات كاسي الله سبحانه وتعالى وحكوت المامية ضدك مؤمنين تأسدنا يهيننا لك جتجينين إلا كلا صار دون الخبيث وطيب لكن إلهي وحليه وما كان الله ليطلعكم على الغيب غيب كان الله يدين ما هو جيسين وأنا الله يدين كلا صاريا محل لقو كلا صاريا وآيات كي تعقيب كواها أحد يعني ابتلاءات كي مشكلات كاكو كلا بحيسة مركي مشكلات دو أمضو أي قشو أيان لوغاني يا كيدا منافقة يا كيدا إيمانكو كدب كيهي كيدا وحكا لكل فاقنايين يا كيدي خير كون وذي مشكلات دادتك لوكا لوغادا أما هدي ليسكو ذا النمعيسين يلا وضا الصعودة دادكو ما كلا قرتو لا ما كلا قرتو إذن هدي للربا مجتمعين تمحيس لغو السمايو إن لك لا صعو ولا بد من ابتلاءات وليبلل يعني إلهي سبحانه وتعالى وحكت المامية إن دتك الله اتحامه وألا أموتيه ما في صدوركم ولا يمحص ما في قلوبكم وحيابا لابتي نكتر أي قلوبتي نساء عضادان ولا يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آيات كاسر دم وحي شيئا كو وحي لنا للرفعة ثانيا وحي لنا للتطهير ثالثا وحي لنا ابتلاء قفك مؤمن كاكو دعا ولتمحيص صفوفهم سلو كلا صارو صفوف تودا تطهير الذنوب ويت وحقائق سغن بوص رجل نقفكو ينكو قالوا ووحا سغية بل واكي حديث كي صحيحين كويا اللي محوت المامي ابن عباس يا أردي أرددي سكمد عطاء بن أبي الرباح أبو حقولها ما كنت سياه امرأة من أهل الجنة هابو يلي وقبل مدوه هل كاتشوك تبكو يلي قبر صوح ما قبته ومدوه ميل فرد ده وحديث كي شيء إنه النبي عليه الصلاة والسلام قبلنا يوتي ميضا كعبانيسا صوح دمو دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام حكو يلي قبر يهي حدات الربطنة أكو دعين إنه الله كاقاض haddaad rabtana waad iskaga sabri dabeetana jannaad leedahay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waan ku sabrayaa jannadaan rabaa
laakiin marka aan suuxa un baan qaawismaayey ilaahay waxaad ii weydiisay inaan la cawradayda iyo asturo haddaba dadkunina cawradeeda dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu u baryey inaanay markay dhacdo cawradeedu muuqan ibnu cabbaas markuu arka wuxuu dadka odhan jiray ma rabtaan gabadh ahlu janno ka mida waa gabadhaa suuxdimaha leh halkaa fadhidu ku tilmaamayay idan qofku boosaroo janno abuu gaadhsiinaya dunuubtu ka maydhaya siday dadku u kala khayr badan yihiin buu ugu kala bataa dhibtu waa kii xadiidkii saxiixayn ku yaallay tilmaamayay ibnu cabbaas ayaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u soo galay isagoo aada u xumadoonaya o aada u xanuunsanaya markaasaan idhi buu ibnu mascuud markaasaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xoog baad u xumadoonaysa innaka tuucaku wackan shadiida xoog baad u bugtaa nebigu wuxuu ku yidhi ajal haa waxaan u xumadoonayaa laba idinka midisay u xumadoodaan markaasaa waxaan ku yidhi buu leeyahay ibnu mascuud baa wuxuu ku yidhi taa macnaheedu ilaahay rasuulkiisa waxa weeyaan in adigu laba naga mida ajarkooda leedahay yacni maadaama adiga xumadaadu dhebel ay tahay ajarkaaguna waa dhebel buu noqonayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ajal dalika kadalik maa min muslimin yusiibuhu adaa shawka فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها وحلنا مرك ابتلاء معنى يالبدن بولي قفك مؤمنك قفك قالك isaga ibtilaagu ku dhaca muxuu yahay hadaynu nidhi ibtilaagu waa qadiya laabudda inay waajahaan gaal iyo muslimba ama ha noqdo mid faqri ama mid bukaan ama mid colaadeed ama ha noqdo dhanka kale mid sulto mid xoog weyn wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas baa ilahay yidhi xoog iyo boqortooyo iyo mulki iyo waxaan in la helo waa wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas gaal iyo muslimba waa la soo maraya kullan numiddu yani ilaahay wuxuu tilmaamaya kuwan iyo kuwanba min cataa'i rabbikin wax laga siinayo laakiin labada qolo laba macno kala gadisan buu ku yihi بالنسبة للمؤمنين الصادقين مركيهين وحوية هبين لأنه والرفعة وكريالد ذنب يقول لك الطاهر ياليو تمحيص صفوف توضى لغو السمينيو تربية في عنو إيمانيو لصينيو ياشر كلو كردينيو مركو يهي لغيرهم أما للمشركين ابتلاقهم حوية وحين لأنه وحوية علاجا وتوجيها وإنذارا وإعذارا انتبهوية يغنى إلهي القرآن كيسوي حليه ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون كيوهرا إلهي وحت المامية سبحانه وتعالى إن رسول الله صدري ظهر إلهي وحشيغين لغو قبطي بالبأساء والضراء إني دباطة قبصتي وماذا قالت بعد دباطة كل عضي وايو إلهي علاد الشيء وحليه لعلهم يتضرعون إذن وحين لنا وللعلاج بل نمعدو مركا كبضتي إني فكران وإلهي وصل نقضى سبحانه وتعالى إلهي وحليه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ألا وحليه سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون هذا يتضرع سمي وياه هداي سدول دغي وايا قرانك وحينو تلماميا هدنا اني مع لوغو بدلا ابتلاقي مشكله داها هداي الهي ugu soo noqon waaya subhanahu wa ta'ala wax la galiya ibtilaa kale oo binicma inni maco loo dhiibo qofka oo yana lagu itixaamayo bal sidoo ka yeelo la'allahum yashkuruna yarji'un إلهي وحلي ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون مكان السيئة الحسنة بقى لو بدله لكن هديك هاسنا ومركا سيكا سورتو بويدو حالة الاستئسال بيقادا مركا استئسالنا لو قسم يوكوان لايو إلهي وكلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مركا الله إلا به سبحانه وتعالى بأساقي الضراق أي كسو النقوم وين أي لا يحلي فتحنا عليهم أبواب كل شيء
الباب والبوان أفر ريبا إلهي سبحانه وتعالى لكن هدي كان أقبل ويان ويكبر كسيقاضان حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون بإلهي سبحانه وتعالى وحن لنا مرك نعمضة هي النقمضة نبتة هي الدافته أركتد القرآن كواسكو معني لبدو بنا امتحان لبدو بنا امتحان ليجي موقف كاد استاجي سوح النقنية قفك بني آدم كاين نلشي سمركا سوى حكا كوابان تيون مواقفته استاجي مركو براريسنا يا مواقفته استاجي مركي نبتو هيستي اللي سوق جيو أيوم باء قفك يدقا كي سيودن أما نلشي سيودن وحن لا نمرك nolosha dunidu haddaynu rabno inaynu si dhaba u fahamno dhammaanteed waxay ku salaysantahay alibtilaa alxayaati dunya qur'aanku qisaska weyna siiyo iyo ambiyadu qur'aanku ka warramaana iyaguna waxaan leenahay waa annamaadij albashariya assaamiya aw annaajixa fi alibtilaa'at weeyaan ككلا وقرآن كشاكية يعني قرآن كيالان والنماذج أما وتصاليال كلو بنا آدم أو يناكو ساقضي امتحانك التاريخ الإنساني مركا وحويان والتجربة الإنسانية أما وابتلاء سقفك بنا آدم كوصامري قرآن قصص كينوغا والرماء أردمنا وقلا امتحانك إلا مريي كقولي ستي يقلا امتحانك إلا مريي كساقضي أنبيضنا iyadoo ay marka hore basharka tusaale u wadayiin ayay haddana nabi walba hadad quraanka u sii fiirsato wuxuu mutakhassis gaara ku siiyay nooc min al-ibtilaa oo basharka aakhira xujo ugu in isaga la mariyay oo ay macquul tayntu bin aadamku maro fi xuduud taaqa al-bashariya inuu ka xad gudbi karo qiyaamaha inuu shaahid ku noqdo way anbiyadu waxa weeyaan waa shuhadadii maalinta qiyaame dadka oo dhan ku marxaati kacaysay مثلا نماذج فضود أو ظلمرة هدان تلمامه أشد الناس بلاء بين كت المامه نبي الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أبني ما يتصالكوي قرآن كوحين أغا والرمية إن لغو اتحامي أبني ما وعلى تلمامه إنه إلهي سبحانه وتعالى مركا هريدا شكاحري أو قبوبي أو داء قاري أو يسوق الداء وإلهي بريه سبحانه وتعالى وإلهي ويلسي لكن أولاد مرة دا امتحانك كم متحي أنبياء النبي كتير مركا تخصص كان لسيي وعرورتي سيلوغو اتحامي إبراهيم يعقوب لبضبا امتحانات كم ويكاله نبي الله إبراهيم وحل فري كي ودد بك هيستوي إلهي ويديستي إنو قورع بليري قورع وامتحان nin weynaaday oo da' gaadhay oo muddo badan aan dhalin oo hadda ilmaal la siiyay oo ilmihu hadda yara taracrucay oo xoog yara yeeshay oo haddana amar lagu siiyay midka kaliya inuu birta mariyo laakiin uu ku guulaysto markuu aqbalay inuu birta mariyo ilaahay faraj u furay waa imtixaanaad khatiira imtixaanka aabanimo ibraahim la mariyay tan oo qurama حتى هذا حديث توفر ستحديث كي بخاري محوت المامي مركو إسماعيل أنتو سوك حقيقية هو يدي وكجت جاي بيت الله الحرام هلك أمك وسكجت دقاقي محو جت جاي والنبي قيس كيسي لغوي تحامي لكن وحال لغوي تحامي بالقيس كسيدو كي لا يدين تيسا قيس كاني وحي وجيستان تبتنا وحال يدين تاد المهاجة إياها وين تاد قادي meel lama daga agee oo hal qarbado biyo ah iyo qarba timir inta uu dhigto iskaga tag nabi ibraahim wuxuu dhigay haweentu qabay ilmihiisii meel lama daga ah dabeetana uu iskaga dhaqaaqay haweentu way qaadan kari weyd meeshan cidlada ah aan reer deganayn ee biyo oo lina waxay haystaana ay tahay wax qarbad ku jira harag yaroo la maalaasay inta miro ku jirtay biyo ku jira la garan karo maalmo dabadood inay go'ayso cid ay ciirsato kale aanay meesha oolin
إبراهيم مركز كذا قاقي كذا تمي حديث كبخاري سو شيء واحد الماما يعني مدة كذا بهاد ليسي يا نجيت تجلس إبراهيم أو جواب ويسكت صعدي مدة مركز دبس عتي سؤال ويديسي الله أمرك بهذا بيتري عد لنا نجد قاقي سي إبراهيم ما الله كفري هابك يري الله بيفري سبحانه وتعالى إذن لا يضيعنا بيتري هدي الله كفري هدا الله نما ضيعي مع السلامة يعني اسكتك مرضو الله أمر كي أي تهي بنان كافر فريستا ولا بدا قربتنا هايستا إلهي هدو سان قواميين نلال بسيدو ألا قواميين كتشرته وأنو يالينا بيتري إلهي سبحانه وتعالى وتقانين وحدو سميي إيا سار نرشي اللي وقف دايديي إيا إلا هدا الشعائر التعبدية مدى إنو كحصوصا نرهر كان إيا موقف كيسي السعي بين الصفا والمروة إيو كعبضا إيا وحن أردمي وحينا حصوصين أيان قضية من قضايا العقيدة التوكل على الله داد سميي وتجربة ابتلائية والنبي قالي تسألك الآن دسيو مثلا النبي قالي تجربة ابتلائية نبي اللي يرى قروح لغو يتحامي نبي الله يوسف عليه السلام آخره وحكم مرخاتي فردوناو قبر كستا إيا ويل كستو انتو مشكلات دا طريقاله دور سومي وايا ابتلاء بقى لقاليه إن قروح ديسي أي فدنايسو خلقة ديسي الله وأبوري سبحانه وتعالى إن فدنايسو ودادكو يسوط المامان إلا حد أي قارسيسي قريقي بغرطوية وكون نولا هوينتي شوكتين هنقريسو امتحان كانوا فيرسو قفل هايو وقريقا لغو هايو ولليه هاي وشقالاء لكن قبل سيدة القوم ومنصب سرالة وقروح له وحوالها يستطيع عن كده ويرسو وديدا وتصالح وأهل الشباب دمر قروح بدن بانو نميو دول قالت بانو نميو ميلا لغو برواقي سيان لميو مشكلة دا بدن آخر نبي يوسف باتاقن ومر خاطيه وشاهد كا قضية دتن إنه إنسان كو هدو إيمان كي سود ما يسترين إنه يسحجن كرايو مهما كثر ما ابتلاء وين كستو وين هذا وحن لنا القرآن كهداد فيرسطه نبي الله موسى عليه السلام هي نبي الله هارون وتصالي بشر كويين ظالم كهرتجيسة وحي تشارع ويهين إن كلمة الحق لقى له هرتجو عد كسته آخر عدة كمر مرصوتات هذا ولا حوق بدنا يولا وينا يواكن على تلمام يا النبي هارون يا موسى ينشوغان يجو عد الله صادر يا هيد فرعون وما أدراك ما فرعون وانك انتو دتك يسرت اجاي ومد ugu khudbaday ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghayri bal fir'aun hukumkiisu waa dictator aan dunida wali lahayn in taariikhda caalamiga akbar dictator wa ka quraanka waramayo wayamiya aragteen nin dawlad xukuma oo shacabku xukumaya qayb kamida ku xukuma inaanay rag dhalin iyo dunida ku aragteen nin xaakimo oo yiraahda reeraha qayba kamida aan ummadaan xukumo wiil ma dhali karaan fir'aun intuu istaago yiri wixii reer banu israa'iil rag ma dhalaan sanuqatilu abnaahum wa nastahyi nisaahum rag waxa madho haweenkuna haadho wa ma'a dhalik nabi baa loo soo diray waajaha mushkilada inta leeg wa aakhira tusaale cid walba hortaagan yani waxaan leenahay anbiyadu واستارس أما واحد دقه وفبهداه مقتدي كوال النبي سكولي عليه الصلاة والسلام سيدة درادين حتى هوينك أنبيادو وتصاليالك قرآن كسيدة وقطحان مركة كل شيء يقع تصالك كل شيء يقع تصالك هوينكو وحنو نقانا نبيكم هينو أمثلة دي لكن قرآن هو تلمامية مواقف أكبر طاغية هويني سيرتا أكته وملكي سيبغر تويدي سيوحي سبك الدور بالده إنو إلهي قوري جنة وقدس آسيا
haweenaydu fircoon qabay waa ka alle subxaana wa tacaala qur-aanka ka warramaya mowqifka istaagtay oo ay ka doorbidayso boqortooyada tan iyo xoolaheeda iyo ninkan le anhaarta hoostayda maraysa iyo mulku misri iyo waxaanaan haystoo dhan waxay ka doorbiday inuu alle beyt fil janna uga dhiso waxaa qur-aanku mithaalu inoo siiyey haween kale maryamo ah waxa uu qur-aanku tusaale inoo siiyey muuse hooyadii waxa qur-aanku tusaale inoo siiyey lilxayaa gabadh xishoonaysa nebiyullaahi muusa inantii ama hablihii uu waraabiyey waxa qur-aanku tusaale inoo siiyey maalan haween duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqayso laakiin shaqadu inaanay keensanaynin inay xayaageedii ka tagto waa labadii hablee walaala ahaayee uu nebi muuse ugu yimi ceelka dadku markuu xoraabsanayaan adhigooda ama xoolahooda meel ku haysanaya markay raggu ka dareeraan meesha intay u weydaa way shaqaynayeen haween bay ahayd duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqaystaan waayo aabahoodna wuu gaboobay cid kale u shaqaysana ma haystaan laakiin xishmadoodii iyo islaamnimadoodii kamay tagsiinin shaqadu kamay tagsiinin aakhira gabadh kastoo tidhaahda duruuf ilcamal baa igu kaliftay waxaan inaan sameeyo waa shaahid qiyaamaha loo soo taagayo u taagan waa shuhadaa waxaan leenahay qur-aanka waxaa qiso ku aragtaan xukaamta maalan ambiyaa ilaahay halkan u dhigay aakhira ku markhaati kaci doonta qofku markuu siyaasi noqdaa unbaa suldadu gashaayo waxa kana wuu fasaa ambiyaa ilaahay soo taagayaa ah xukumkii ugu fiicnaa ee basharkoodu inuu ahaa wakhtiga iyagu maamulayeen alcasru dahabi lilyahuud qoomka yahuudda ama reer banu israa'iil loo yaqaano waxay yidhahdaan taariikhdooda waxa ku jirta wakhti ay u yaqaaniin alcasri dahabi wakhtigii dahabka ahaa waa goorma waa goortay labada nebi u kala dambeeyeen maamulka nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan waa laba nebi sulaymaan aakhiro wuxuu tusaale u yahay nin kastoo xoole iyo badhaadho iyo boqortooyo iyo wax lagu itixaamo tajriba buu galay tajribadii hore way ka yara labaclabac tidhi waa kii fardaha iyo waxay yara ilowsiiyeen wuu ku xanaaqay yidhi ilaahay dikrigii ilaahay wuxuu weydiistay tajribo ka adag inoo la geliyo subxaana wa tacaala mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi ilahu igu itixaam buu yidhi inkaa alla u dhiiba subxaana wa tacaala ilaahay baa u dhiibay boqortooyo aan ciddan ba helin laakiin tii abaalkeed buu mariyey wuu ku guulaystay waa kii mawaaqiftu isagoo jin iyo insi iyo shimbiro iyo wax walba xukumaya marka carshiga loo keeno carshu balqiis tilmaamayay hada min fadli rabbi liyabluwani xulaa waa kan ilaahay fadligii laakiin waxa alle uu saan u yeelay maxay buu leeyahay wuu fahamsan yahay qasdiga waxa kani u dhaceen inuu alla itixaamo buu leeyahay inaan shukri noqo iyo inaan shukri naqin waka ilaahay weydiisanaya rabbi awzicni an ashkur ilaahay buu weydiisanaya inuu alle subxaana wa tacaala uu ugu mahadnaqo idan kullu rajul siyaasi aakhiraysa soo taagay dhaha duruuf siyaasiya ayaa keensatay in caynkan la sameeyo in kan la sameeyo in kan la sameeyo aakhira anbiya taagan duruuf siyaasiyo xaali ka soo martay oo dhan hogaamiyey oo laakiin ku hogaamiyey xaq iyo sawaabka waxaan leenahay أمثلة الفاشلين ندى قرآن كي ينوي كوبا دانت قوم عاد ثمود وحن قوم قرآن كو كور راما يوردن تجربة لقاليي أو تجربة دي كفاشليي سيدة درادت وحن لأني فهم الحياة أو الحياة الدنيا هدين ربنا إنه نسيوه نكسنه فهمنه وحويان إنه أقرنا إنه يتي دار للابتلاء ما الله يسكو يتحاميه waxaan nolosheenno dhanna inaad aragto mowqif kasto aad taagantay inaad xasuusnaato inay tahay imtixaan xagga alle kaaga yimid hadduu nimcayay hadduu baraaqayay hadduu badhaadhayay hadduu cilmiyay hadduu aqoon darrayay wax kasta waa imtixaan xagga alle ka yimid oo lagugu eegayo mowqifka aad iska taagi doontaa kuu noqon doono waxaana qur-aanku kuu tilmaamay mid kasta cid ku guulaysatay inay jirto maalan نبي الله أيوب وحتسأله وياه بشرك قف كستو حنون كحنون وقدرني وكل عطو سأله قيامة وحلا سوتاغي النبي أيوب
oo ku sabrayo tusaale ku ah mushkiladatan inaan xanuunka badan iyo dhibaatada marka kugu badato inaan xaq iyo diinta ku dhaafin karin ama alle inaanay ku ilowsiin karin subxaanahu wa tacaala qiyaamaha ayuub baa kugu markhaati furaya calayhi salaam waxaan leenahay marka calaa asaasi hada alfahmi haddaad qur-aanka ku akhrido aad maanta isku daydaan qiraa'a jadiida inay akhridaan min faatixatihi ilaa birabbi annaas waxaad arki doontaa iyo marka aad fahmi doontaa qur-aanku qisaskan uu ka warramayo noloshatan waxaad garan doontaa noloshatan iyo waxaad u joogtaa inay tahay in lagu itixaamo kullamaa diintaadu sii kordhana in imtixaanadaadu sii adkaan doonaan waxaad garan doontaa ambiyadu inay ahayd dadka kuwii ugu imtixaanaadka badnaa waxaad garan doontaa haddaad nimacaysantay iyo haddaad badhaadhaysantayba inay imtixaan ku jirto haddaad nimco ku jirto iyo haddaad ku jirto mashkiladba inaad labadaba imtixaanaad ku jirto dabeetana inay laba mid untay inaad walwaliya kugu dhacdo iimaan darro dunida aad doorato iyo inaad nafta dunida xakamayso aad aakhiriya jannada doorto oo aliithaaru bilxayaati addunya aw aliithaar bilyowmi alaakhir waa labada midun ilaahina wuxuu tilmaamayaa cidda tan dooratana cajalnaa lahu maa nashaa cidda takale doonatana in alle subxaanahu wa tacaala uu badiyo haddii adigu aad bal tu'hiruuna alxayaata addunya haddaad kuwaa noqoto ama yuxibuuna alcaajila kuwa alla ku tilmaamaya kooxda haddaad ku biirtana inaad kooxtay qolada daarta aakhiro u haysata noloshana waina daara alaakhira lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun ama qolada alla ku tilmaamaya yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya aan fahmin qasdigii nolosha dawaahirta dunida way fahmeen iyo saa loo manaafacadsado iyo kownkan alla taskhiiriyey sida looga faa'iidaysto waa almanaafic aldaahira fi alxayaati addunya way garteen laakiin maqaasidii may garanin waxaan ka dambaysay oo ahaa inuu shukri noqo muu garanin ama inuu sabro labada midna muu garanin ikhwatii fi alcaqiida ma jecli inaan hadalka idinku badiyo waayo hadalku hadduu bato dhibtiisu iska leeyahay waxaan idinku soo koobayaa kelimada muxaadarada idinku koobantay waa kelima waaxida oo ah nolosha adduun waxa loo baahaya inaynu fahamno oo aynaynu u fahamno inaynu imtixaan ku jirno qofku hadduu imtixaan ku jirana wuu warwaraa waa taqaanin wiiga aad usbuucaad imtixaanka ku jirto dugsiga ama jaamacadda iyo usbuuca kale isku mid ma tiid usbuuca imtixaanka ballamadoo dhan dib baad u dhigtaa danaha kaleo dhan waad iska dhaaftaa waxaasi oo dhan waayo waxaad isku daydaa marxalo ah inaad u diyaargarowdo imtixaanka si aad natiijo u keeni lahayd waxaan jecel un risaaladaydu inay ku koobnaatay inaan idiin soo gudbiyo nolosha fahmoo waxa u fahamtaan inaa imtixaan ku jirtaan imtixaankanina waa maalmahan yare aan nooshiin ee lixdameeyada sanaa ayaad ku jirtaa waa imtixaan guriga markaad ku noqoto iyo xaasku waa imtixaan caruurtaadu waa imtixaan xoolahaagu waa imtixaan tacliintaadu waa imtixaan aqoontaadu waa imtixaan quruxdaadu waa imtixaan waxaad haysatoo dhami wax kastoo aad haysato calaa hada almindaarun ku eg haddaad xoolo leeday haddaad faqritay haddaad bugto haysoo dhan in dadku uu kaa satrooyi haddaad xoolo leedina amoodi dadka inaad ka satroontay labadaba imtixaanunbaad ku jirtaa une waxaad maskaxdaada in badan ku xidhaa jawaabta saxaasaad mar kasta u bixin kari lahayd si aad isugu dayi lahayd inaad jawaab saxa ka bixiso noloshan adduunyo qofka muslimkiina inuu u fahmo ibtilaa'aadka dadka muslimiintaa ku dhacaya inay ugu dhacayaan lihadihi alasbaab in dunuubta alla kaga maydho in manzilo sare lagu gaadhsiiyo uxud ilaahay markuu sababaynaya waxa la yidhi waliyatakhida minkum shuhadaa mansilatu shuhaada waa boos loo baahayo qofka muslimka in la gaadhsiiyo laakiin miyuu gaadhaya haddaan dee dagaalku dhicin oo la laynin ma gaadhaya waa in dagaal dhaca waa dadna la laaya haddii la rabo boos shahaado in la gaadho walidalik baa ilaahay dagaalka waxyaabuu ku sababeeyey waxaa ka mid a waliyatakhida minkum shuhadaa idan waa inaynu u aragnaa noloshan oo dhamm inay imtixaantay imtixaankaasina labadaa waji inuu leeyahay qofka mu'minka inuu yahay in dembiga lagaga maydho boos saro oo janno in alle uu ku gaadhsiiyo subxaana wa tacaala iyo
noloshooda in la isku baro tamxiis uu ku dhaco ay waxay isku fahmayaan kooda kartida le iyo kooda iimaanka dhabka iyo kooda munaafiqa in mashkilaadka kana isku dhex gartaan ibtilaa'aadka kuwa gaaleed ku dhacayaana inay u yimaadaan litawjiih la'allahum yatadarra'un lilindaar lil'icdaar akhiiranna baghtatan in cadaabku haleeli doono ama booskooda naareed markay buuxsadaan wixii taa loogu talagalay markay buuxsadaan ay booskooda tagi doonaan ilaahay waxaan ka baryayaa idinkii anagaba inuu ina waafajiyo imtixaankaasi kuwii ku guulaystana alle subxaanahu wa tacaala inuu inooga dhigo waxaan dhammaantiinna idinkula dardaarmayaa in badan inaa akhridaan taariikhda dadkii ambiyada iyo saalixiinta iyo dadka wanaagsan sababtu waa maxay waa namaadijtii guulaysatay qofka bini aadamkiina star kama maarmo waxay yidhahdaan noloshu muthul bay isaga baahantay wax kaa yara sarreeyaad higsataad isaga baahantay xataa waa qadiya ijtimaaciya gaaladu ay fahamtay sidaa daraaddeed bulshada waa in loo sameeyaa dad ay hoogsadaan waa taqaanin maanta dadka waxaa loo sameeyey wax nujuum la yidhaahdo laguma tilmaamin inay dad yihiin waxa laga dhigay inay xidigayiin xidiga kubadda cagta xidiga shaneemada xidiga heesaaga nujuum walana nujuum nujuumteenu inaga waxa weeyaan waa ambiyada iyo mursaliinta iyo saalixiinta iyo dadkii toosanaa kuwaas baa nujuumta kii lagu daydaba lagu hanuunayo kuwaas baa nujuumta ilaahay leeyahay fa bihudaahu muqtadi waxaan idinkula dardaarmayaana si naftiinu ay u hesho xooggii ay ku geli lahayd dagaalka kan ama tajribada tan ay kaga bixi lahaydna inaad in badan akhrido bal kuwa guulaystay ee imtixaanaadkan ku guulaystay oo quraanka iyo sunnada ka waramayaan iyo kuwa faashiliinta ee quraanka iyo sunnada ka waramayaan imtixaanka ku guulaystay ويادو نبي داود يا نبي سليمان أيين كوي كقول استبغر تويدا أما ماملكا فرعون يا نمرود يا غيركينا وكوي كساقطي هدوي هاي نبي أيوب كوي نمعدا يا كوي كوان كقول استي غير كبال سهل يا كوي كفشله يعني نبي كستي تصالح عكس جسابة سهل يسا إلهي وحن كبر ينو حقينا وافشيا والله أعلم وبالله توفيق